qofku markuu suuliga galayo wuxuu nabigu sallallahu alayhi wasallam qofku markuu suuliga galayo ama xamaamka galayo ama god u galayo haddii qofku uu yiraahdo allahumma inni a'uudhu bika min al-khubuth wal khaba'ith ilah waxaan ka magan galay khubuth wa jam'u khabith wa dhukuru shayatin shayatinta kuwada labka abaa lidada khabithna wa jam'u khabitha wa inathu shayatin shayatinta kuwada dhadiga abaa lidada khabithku marka waa waxa sharka ilaah lab iyo dhadig rag iyo dumar shayatinta sharkooda iyo balaayadoodan ka magan galay qofku sida ay yiraahdo markuu suuliga galay xadiiska riwaayad qaarkood waxay yiraahdaan in hadhihi al-hushush hushushtan musqulaha marka nabigu u jeeda laakiin ereyga hushush asalkiisu albasatiin balla wa beeraha waxa rasuulku lafdiga uu isticmaalaya inta aanay suuliyada samaysan ama musqulo aanay dadku dhisan beeraley bay ahaayeen beerahoodaasay meel kamida ku xaaji gudan jireen marka saasa kelmadda asalka rasuulku u adeegsanaya marka nabigu wuxuu leeyahay musqulahan shayaatiintu way soo xaadirtaa waa meesha degan yihiin musqusha iyo qashin qubka iyo kudaafada iyo meesha xoolaha lagu qala iyo meelaha qurunka oo dhan iyo bulaacadaha halkaas uu degan shaytaan halkaas ay isugu yimaadaan qofkiin markuu suuliga galay adkaarta akhristo waxa nabiga u timi gabadh waxay tii rasuulka ilaahayow dhiig baa iga socda habeen iyo maalin intaa oo sanadood ma daahirsado waa liitaa nabigu muxuu ku yiri sallallahu alayhi wasallam dhiiga ka soconaya waa shaydaan baa ku haraatiyay ama ku laaday xidid la yiraahdo caadil oo makaanka iyo riximka hoostiisa mara ayuu laad ku dhuftay buu nabigu sallallahu alayhi wasallam xididkii baa go'ay dhiiga soconaya kaas way buu nabigu sallallahu alayhi wasallam ma ujeeda dhiiga soconaya kaas way buu nabigu sallallahu alayhi wasallam marka waa cadow gabadhaasi wuxuu rabaa inaan ilmana qabsan caafimaadna ka fogaato cibaadadiina ka waxaysanto ninkeedina ku dhibmuto iyadiina dhiglaan u dhimato rabaa xididkaasu jaraya bal fiiri laadaya laakiin haday adkaarti akhrisato way ka badbaadaysaa dadka qaar adkaarta markaadan akhrisan suuligii gashid la awradaadi buu daawanaya waa kugu qosqoslaya hadda nin weyn ama qof dumar oo xaafad intuu soo dhaxtaaga dharka iska dhigay soo lagu qoslima la yaabi maayo de ninkan shaydaan halku degan yahay islaantiisii caruurtiisii iyo balaayadii oo dhan baa halka fadhida hadaad isqaawiso oo weysanayso ama aad xaajo gudanayso oo aad adkaarti akhrin oo ku fiirsanaya balkan islaamka afiiri kan fiiri buu soo weegiye kuwa qaar baa qofka intay jeclaadaan gala markaas marka quraanka lagu akhriyo ka qayliyo wuxuu oranayaa isagoo qaawan baan arkay waan jeclaaday waa caynka kan maxaa wax kuugu darayaba kala baabatihiin nabigu sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri isagoo arinta ka hadlaya sitru ma bayna al-jinni wa awrati bani aadam asturka u dhaxeeya iyo daaha u dhaxeeya jinka iyo awrada bani aadamka hadii qofkood qof kamida uu suuliga galo an yaqula bismillah wa inna bismillah dhaho bismillah marka suuliga sii galaysid bad bismillah idaysa ducaadana akhrinaysa khalaas markaad gashid masharqanta iyo qubayska iyo quluucda inuu maqlo masayno wax arko waxa arkay waa dam kuma arkabade kuma arkay laana adkaar adag baa ku xidhan arintaasi waa muhiim jiddan in qofku ilaashado adkaartiisa nabigu sallallahu alayhi wasallam wuu tilmaamay waxa kamida xisniga la rabo qofku inuu marka uu meel dego safar baata meel baad istiri ku seexo oo deg oo habeen ku sii dhax ama maanta galinka hore joog ama waxaad istiri meesha tan ku nasto oo bal ka qaday oo harso oo galabta ka carrow baad istiri ama safar baad tahay oo marba meel baad ku degaysaa adkaar baa jirta la akhristo nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam man nazala manzilan qofka meel dega ama waqti kooban deg ama maalme deg ama toos ba u deg hadaa rabtid thumma qala dabeetana yiraahda a'uudu bi kalimati llahi tammati min sharri ma khalaq ilahi kalmadiisa dhamayska tiran baan magan gelaya wixii uu abuuray lam yadurruhu shay'un hatta yartahila min manzilihi dhalik wax dhibaya ma jiro ila uu ka guuro meesha uu degan yahay nabiga sallallahu alayhi wasallam عربتي waxay ahaayeen jaahiliyadii qabla al-islam marka ay safariin markay meel degaan waxay oran jireen intay hadlaan ninka marka la socday hogaaminaya safarka jinka meeshan degan odaygiisii ka qabiilka ninka uu ah ayaanu magan galnay inaanu shayaatiinta waxba na yeelin Somal garan innahum suratu jin yauduna
برجال من الجن فزادوهم رهقا سؤال لما ورا سبحانه وتعالى marka adigu waxayna ka xirowdaa la rabaa oo marka aad adkaar akhrisatid inaga markaynu hadda guri dhisano kale dadka qaar waxay sameeyaan guriga markuu dhisto xoolo qalaa waa marka dadku isugu yeeraa alla bari baa la sameeyaa ama luqadda kale zabna waa la yiraahdaa zabna waa la sameeyaa ama alla bari baa la sameeyaa zab ya alla bari waxa doonto dhaho waxaasama meesha la sameeyaa haddii qofkaasi uga jeedo bay leeyihiin culimadu shukran lillahi ta'ala ilaahaygi binaha iyo dhismaha siiyey dad badan oo haysanin mahadnaq ilaahay u mahadnaqay haduu u bixinay sadaqadaas wax dhib la maaha haduu laakiin isleeyahay meesha tan jin baa kula degan jinkan xoogaa iska kala jeedi ma banaana marka